talaala meeshan 300 iyo waraxsan u waraabinayna sanad 12 biloodan waraabinayna aan ku haween dush bi aan ku qaadnaa dhaar kasta ku waraabina talaala had hooskooda la hergila waraabinayna talaala nool kaani kansalaha geedan noo kaani 12 bilood soo waraabinayna wax waran ka haynana malaha marka in la soo ogaado waxnada intaan biyo xamaalay haweenka danyarta ee tuulada Quracdheer ee deegaanka Labixiya ayaa ka cabanayaan in muddo sano ah in ay dhacayaan dhibaato la xiriirta shaqada waraabinta geedaha ayagoo aan helin wax taageero ah oo ka imaanaya dowladda ismaamulka Mandera. Waxay ka dhawaajeen in maalin waliba subax iyo galab ay lug ku socdaalaan masaafo 2 kiiloomitir ah si ay dhirta u waraabiyaan. Marmarka qaarkood dusha ay ku qaadaan biyaha ay ku waraabinayaan geedaha. Arrintani ayay ku tilmaameen culays nololeed aad u weyn maadaama aysan helin wax taageero dhaqaale ah. Haweenka ayaa dhaliil adag u jeediyey wakiilka golaha hoose ee deegaanka Labixiya, Mohamed Cabdikariim, oo sanad ka hor deegaanka Labixiya ka hirgeliyey mashruuc lagu abuurayo ku dhowaad 400 oo geed. Haweenkani danyarta ah waxay ku andacoonayaan in deegaanada kale ee ismaamulka Mandera haweenka ka shaqeeya waraabinta geedaha ay dowladda mushaar joogto ah ay ka helaan, halka ayaga xuquuqdooda ay ka maqan tahay. Qaar ka mid ah haweenka iyo waxgaradka deegaanka Quracdheer ayaa ugu baaqay dowladda ismaamulka Mandera in si degdeg ah loo tixgeliyo cabashadooda, lana xaqiijiyo inay helaan xuquuqdooda shaqo maadaama ay si joogto ah u qabtaan shaqada culus ee waraabinta geedaha. anaga maxaan nahanay gabdhe talaala meeshan 300 iyo waraxsan u waraabinayna sanad 12 biloodan waraabinayna aan ku haween oo qaarkood ay uga ilmo wataan qaar ilmaha rijooyin ay qabaan dushooda biyo ku xamaalayeen kaan soo lahayna noo keen si nool dhahay talaalaha kale arad kale ee lacag laga qaataa talaalaha wixii noloshiin waa helaysiin si nool dhahay sidaan ugu joognaa inay magacayaan nagala qortay magacayahayna kulli la qortay oo kulli taana wala gashtay lambarhayna la wala qortaa meesha noogala tag marka maxaa waa dhibkaasna iidan waan haystaa rafaad weyn aan ku qabnaa waraabintooda aan ku rafaadnaa dush bi aan ku qaadnaa dhaar kasta ku waraabinaa talaalaha had hooskooda la hergila marka maxaa waa talaalahaas aan rabnaa inay jibaabtooda ahan aadan axmed alla dhahaa talaalahan 12 bilood waraabinayna waxbana kuma qabno marka intaasaan biyo xamaalayn in talaalahan hayna la soo ogaadaan rabnaa deegaamaha kale in wax maalin habeen waxa bay qaataan kawtiga wax baas qaataan marka in la soo ogaado waxnada intaan biyo xamaalayn ilmo dhinacan ka tagnaa intaasaan biyo arooreen hawshana goynaa dhib ay nagu tahay ilmahayna gaariyaasha dhaxdu ku dhacaan biyo dhaxdu ku dhacaan ka tagnaa marka in wax noogala ogaado talaalahaas wax noogala soo taartaa rabnaa ku bacdheeran joognaa marka geedaa noola kaani kansalaha geedan noo kaani 12 bilood soo waraabinayna wax waran ka haynana malaha gabdho oo ilmo ku xirihiina geedaha dhaar waraabina oo gun waraabina wax waran ka haynana malaha marka wadankooda margaa la waraabina lacag qaataan Allah ka waxaan ka haynana malaha talaalaha waraabinayna talaalaha saan rabnaa inaan odtigayn geysin wiilashayn sharafta leh oo imaan ma sha Allah talaalaha naga wargeysinaan rabnaa talaalaha naga wargeysinaan rabnaa oo odtigooda ahayn gabdhe talaala meeshan waqti badan meeshan maartay waraabinay gabdhihii waxay dheen ilaahay ku marka talaalihii waraabi unaana la dhahay illa allaanka wax ilaahay ma ku hayna male dad ilaahay ku maartay ilaahay ku oo aqoomaa ku jiro dad gabdhe maartay ilaahay ku oo maartay danyaro ilaahay ku garooba ku jiro waxay yiraahdeen wax ilaahay oo mon hayno oo maartay meeshan waraabi moogiyaan hayna male waxaan hadda ilaahay ku oo cuskuna hayno bar waa idin maqay hayn leenaan male talaaliin ilaahay ma hadlay waa wali hiraayin 350 gabdhood meeshan 8 bilood ay geedo talaalo waraabinays biyaan qararkay ku waraabineen dushooda ku xamaalayaan intay ka tagaan libixay tagaan meesha ay ku helaan geedida maalintii beer dhacdo waxay ku helaan caawimaad mal digooda ku bay digooda ku dhintaan waxa u maqan mal ilaahay ma maqan wakiilka golaha hoose waraabin bal lay waa iska waraabin wax dheef ay ku helaan Mohamed Cabdikariim si uu jawaabo dhaliilaha loo jeediyey hase yeeshee wakiilku ka gaabsaday inuu bixiyo wax jawaab ah.